Kenya way codeynaysaa doorashadani waa doorasho ay ku tartamayaan madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadda xilka haya iyo Mr. Raila Odinga oo asna u tartamaya jagada markii afraad muddo 4 jeer ayuu u tartamay xilkani. doorashadu way bilaabatay codeyntii hadda toos way u bilaabatay saaka 12 subaxnimo ayay doorashadu bilaabatay. soo dhawaada dhageystayaal daawadayaal barnaamijkan oo aan ku eegi doono doorashadu say u dhici doonto. doorashadu hadda way socotaa waarahan hadda dhowr saacadood bay socotaa doorashadu waxaa aad loogu walqabaa inuu dhaco wax qalalaasa waxaa isna dhankiisa mar dhow codeeyay ra'iisul wasaarihii hore ahna ninka kula tartamay madaxweyne Uhuru Kenyatta jagada Mr. Raila Odinga oo asagu ah rugcadaa ku soo jiray siyaasadani in badanna u soo tartamay inuu xilkan qabto. doorashadu way adag tahay aad bay isugu dhowdahay saadaashu waxay leedahay aad bay labada dhinacba way u kici kartaa laakiin haddana labada dhinacba waxay rajeynayaan inay ku guuleysan doonaan ay yeeshee lama garan karo ilaa la xiro meelaha lagu codeynayo oo ay bilaabato tirintu waxay bilaaban doontaa wixii 5 galabnimo ama 6 galabnimo ka dambeeya laakiin intaan u dhicin intaas waxaa jira dad badan ama khubaro badan saan horey u soo sheegnay oo ka yimid dunida daafaheeda kuwaas oo kala ah Mareykanka saan sheegnay wasiirkii hore dowladda Mareykanka Mr. John Kerry oo aan shalay mar hore barnaamij ku soo qaadanay ayaa joogay European Unionka ama isku tagan midowga Yurub waxaan u naqaano ayagana dad baa ka yimid Afrika dad baa ka yimid kuwaas oo iyaguna eegaya say wax u dhacaan yani in ay doorashada bal eegaan in doorasho cadaalad ah ay dhacday iyo in kale. sidoo kale shacabka reer Kenya iyagu waxba saas hadda oo dhibaato ama sheeganayaan laakiin waxaa la sheegay in meelaha qaar dad diiwaan gashanaal laga waayay diiwaankii taasina ilaa hadda wax sababa aysan laga helin guddiga doorashooyinka iyagu waxay leeyihiin waan dadaali doonaa laakiin waxaa yara dhib ka yara yimid in ka badan 300 ruux laga waayo magaalada Kisumu waa magaalo ku taala galbeedka waddankani 300 ruux in laga waayo liiskii diiwaangelinta ay ku jireen ee lagu diiwaangeliyay kaararkii way haystaan laakiin diiwaanka kuma jiraan markii kombiyuutarada laga eegay dib baan laakiin u hubin doonaa bay yiraahdeen. laakiin haddaan u kacno dhanka kale iyo magaalada Nairobi waa magaalada Soomaali badan ay ku nooshahay xaafadda Islii dad badan baa ka codeynaya codeyntii toos bay u bilaabatay mar dhowaan waxaan soo gelin doonaa footage ama wax muuqaal laga soo duulay halkaasi inta aan u guda galin magaalada Nairobi iyo si Soomaalidu codeysay hadday noqoto Garissa hadday noqoto Wajeer hadday noqoto Mandera aan bal eegno waxa ka iman kara doorashadani haddii ay si fiican ay u dhacdo. haddii madaxweyne Uhuru Kenyatta dib loo doorto iyadu way fududahay oo shuruucdii hore iyo nidaamkii hore iyo polisiyadii hore ay wadeen bay ku dhaqmayaan laakiin meesha qalqalka badani ka jiro haddii uu la doorto waa Raila Odinga wuxuu qabaa in ciidamada Kenya laga soo saaro Soomaaliya dabcan waad garanaysaan AMISOM baa jirta AMISOM waxaa la rajeynayaa in 2018 bisha 10aad ay bilowday inay ka baxdo ilaa iyo 2020 laakiin hadda xilligan hadda la joogo dad khabiir ku ah arrimahaas ku takhasusay waxay leeyihiin waxaan u baahanahay ilaa lacag gaaraysa ilaa ciidamo gaaraya 28,000 si uu guul u noqdo dagaalka lagu jiro kooxda Al-Shabaab. laakiin dabcan isagu waxa uu qabaa fikirka ka duwan wuxuu leeyahay waan soo celinaynaa ciidamada taas oo khabiiradu ay leeyihiin Soomaaliya bas Al-Shabaab awood ku yeelan maysa laakiin waxay awood carqalad ku keeni doontaa Kenya naftigeeda maadaama ay laga yaabo in shabaabku dib u qabsado gobolada ay soo baneeyeen meelaha ay soo baneeyeen ciidamada Kenyatta. waxaa kale oo jirta in ninkan Raila Odinga uu hadda ka hor hadal ah jeediyay in uu rabo inuu aqoonsado oo ictiraaf siiyo Somaliland. dabcan taasina waxay keenaysaa in diblomaasiyad xun ay ka timaado dhanka dowladda Kenya iyo Soomaaliya. hadda ka hor hadal su'aal iyo jawaab la isku weydiinayay Chatham House asoo su'aalo la weydiinayay waxa uu ku jawaabay dabcan anigu waan taageersanahay waliba si buuxda in loo ictiraaf ama loo aqoonsado Somaliland ayaan taageersanahay. Soomaaliya ayaa si carar leh uga jawaabtay hadalkaasi kuna tilmaamtay wax aan faa'iido soo kordhinayn hadalka noocaas aan loo baahnayn. mid kale dhanka kale midowga Afrika ayaa iyaguna wax ku noqonaysa khatar halis ah maadaama dawlado badan oo Afrika ay leeyihiin dad ama xoogag go'aansataag doonaya oo taasina ay u noqon karto wado ay ku helaan ama xun ay maraan oo go'aansataag ay ku helaan.
arrinta kale ee labadani niman ee tartamaya ku tartamaya xilka doorashada ay isku hayaan waxa weeyaan in Tanzania waxay diiday bataatanba inay ka qayb qaadato ganacsiga furan ama free trade waxa loo yaqaano, taasoo ay baryahanba ka diidanayd xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta. laakiin waxaa sir hoose ay sheegayaan in Raila Odinga iyo ninka Magufuli la dhahay ee Tanzania jooga ay heshiis nooca yihiin oo hoosta ay heshiis ka yihiin haddii madaxweyne Odinga haddii madaxweyne noqdana ay u fiicnaan doono labada xiriir ee labada dal. dhageystayaal daawadayaal waad mahadsantihiin daawashadiina waad ku mahadsantihiin. fadlan like saar subscribe dheh kuna xidhnow Soomaaliya Today si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay doorashada Kenya. waa daqiiqad baan kusoo gelin doonaa wararkii ugu dambeeyay. waad mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.